waxaa maanta si heer qaran ah magaalada Balcad loogu soo dhaweeyay wafdi ballaaran oo hogaaminaya madaxweynaha dawladda Khaatumo Professor Ali Khaliif Galayd iyo xildhibaan ka socda dawladda federaalka Soomaaliya iyo waliba wafuud ka socota Maakhir State wafdidan ayaa socod dheer ku maray magaalada Balcad waxaana ugu dambeyntii shacabka uga qodbadayeen goob fagaara gacanta yare Cabdi Weli hadda qorraxda miyuu ku qarin karaa dadkii ama xildhibaanadii Maakhir iyo xildhibaanadii Khaatumo State iyo labadii wasiir ee dawladda dhexe ku jiray waxay qabteen shir ay ugu tala galeen saxaafadda waxay ka turjumayeen dadka Maakhir iyo dadka Khaatumo inay isku dana yihiin inay wada dhiban yihiin labada degaan waxaan u malaynayaa intii aanu soo maray xagga ahayd oo aanu joognay ilaa buuxooda ilaa intaas dadkaasu dad diyaari garoobay oo hawsha tan u diyaara baa nooga muuqata sababtoo halka iyo xalay saddexdii ilaa saacadda aynu joogno haddaanay midnimada iyo madax jacaylkooda iyo walaalnimadu aanay ka dhabahayn dadkaas qorraxda ma taagnaadeen aad iyo innagu maanta waxaynu u soo diyaar garownay dadkeenii daliya dibadba waxaynu u soo diyaar garownay saddexdaa gobol ee maxaan ku radaa gobolka Sool Sanaag iyo maxaan ku radaa Cayn in saddexdaa gobol shacabka degan inay tashadaan inay midoobaan inay masiirkooda ka tashadaan inay maamulkooda samaystaan inay gacmaha isqabsadaan sidaas baana dawladda federaalka taageerada buuxda iyo midnimadooda ay diyaar ugu tahay shacabkana waxaan ka codsanayaa hal qodob hawshan waxa weeye cid kale oo ay u taala ma jirto waxa laga sugayaa oo la doonayo inay ilayska iyo nolosha cusub iyo waxa ay maanta u halgamayeen ee inta raadinayeen inay u istaagaan oo u kacaan oo xoog iyo maskax iyo muruq iyo maalba la doonayaa inaan guriga u xaraashno inaan dahabka u iibino inaan xoolaha u iibino taasaa la doonayaa maaxda Soomaal federaalka waxaan ku soo dhaweeynaa qalbi furan waxaan ku soo dhaweeynaa shacabka deegaanka Balcad oo ilaa xalay ama saaga saddexdii habeenimo u taagnaa soo dhaweynta maamuladooda iyo dawladooda madaxda dawladooda federaalka iyo madaxweynahooda say u soo dhaweyn lahaayeen u taagnaa baan u mahadnaqaynaa ilaahay baan Maakhir mahad baan u celinayaa dawladda federaalka mahad baan u celinayaa mudane xasan sheekhna mahad baan u celinayaa mudane cali khaliif mahad baan u celinayaa si kastaba ha ahaatee madaxweynaha iyo wafdidan Maakhir iyo dawladda federaalka ah ayaa socdaalkoodu yahay markaasi qabanqaabada shirka midaynta maamulada Maakhir iyo Khaatumo oo lagu wada dhawaantan in lagu dhawaaqo waa Cabdi Xuraan Kalsan TV magaalada Wudud